mas-uuliyiin heer qarana iyo heer gobol ah ayaa maanta kormeer shaqaa ku soo gaadhay degmada Gumburaha ee gobolkaasi Hawd si ay indhahooda ugu soo arkaan xaaladda deegaankaasi iyo saameynta ay duufaanadii roobka lahaa ee ku yeesheen dadka deegaankaasi. mas-uuliyiintan kormeerka sameeyay waxaa hogaaminayay Milka Maxamuud Cilmi, wasiirka wasaaradda shaqada, arrimaha bulshada iyo qoyska, wasiirka dowlaha wasaaradda waxbarashada, barbaarinta iyo sayniska Maxamed Yuusuf Faacuul, waxaana wafdigaasi ku wehelinayay wasiirada Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Duxood, gudoomiyaha hay'adda ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Axmed Maxamed Cabdi Xoogsada, agaasimaha gaadiidka iyo horumarinta jidadka, agaasimaha guud ee dibadejinta iyo arrimaha bini'aadanimada Maxamuud Xasan Sareebaan Doob, barasaabka gobolka Hawd, barasaabka xigeenka gobolkaasi Hawd ayaa Maxamuud Raage, maayirka degmada Balugubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine. markii ay gaadheen gudaha degmada Gumburaha, mas-uuliyiintani waxa ay booqdeen meelihii ay waxyeelada xoog ka geystay roobkaasi watay duufaanka ee dhowaan ka da'ay degmada Gumburaha, waxaanay warbixin ka dhageysteen dadka deegaankaasi iyo maamulka degmada Gumburaha. cid kasta oo wax la soo gaarsiisa waanu mahad celinaynaa. gudoomiyaha hay'adda Norfan iyo hay'adda waanu mahad celinaynaa. way mahadsantahay cid kasta oo wax la soo gaarsiisaba. adeega lagu soo gaarsiiyay waa misay waxa weeyaan 2 haaf kartoon baasta, bac buste, maxaan idhaahdaa bileer koob, saliid, timbir, 4 kiilo timbira. way mahadsantahay. runtii halkan dib baa ka dhacday, alxamdulillaah. wax dhibaato dad dhaawac dhintay ama dhaawac weyn soo gaaray ma jirin. waxaan aad ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo nagala qayb qaadatay in dadka dhibaataysan wax soo gaarsiiyaan oo soo taakuleeyaan. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan igana si gaar ah ugu mahadnaqayaa 2 mas'uul oo deegaanka soo jeeda. waxa xogayaha dawladda hoose ee degmada waxaan jeedaa gobolka Maroodijeex ama caasimadda Hargeysa, xogayaha Siciid Nuur Jaamac iyo Corneyl Cabdiris Nuux Muumin. labadaasoo iyaguna si gaar ah deegaankan runtii soo taakuleeyo keenay agab dhisme oo sibir isku jira jingado 200 iyo 100 sibir ah oo jingadood 200 jingadood 100 sibir keeneen. iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan kale aad ugu mahadnaqaynaa cid kasta runtii ka qayb qaadatay oo dadkeeda la dareen noqotay. iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. mas'uuliyiinta qiimaha badan leh iyaguna na soo gaaray in hore noogu iman, iyagana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. wax kale fariin gaar ah u diray runtii burbajoogta iyo qolqolka deegaanka soo jeeda iyo cid kasta oo deegaankan ka qayb qaadan karta inay dadkooda deegaankoodaba caawiyaan. gudoomiyaha hay'adda ka hortagga aafooyinka iyo wasiirka wasaaradda shaqada ayaa si wada jira u gudbiyay deeq raashin iyo agab gargaareed ee loo fidinayay dadka ku tabaalaysan roobabkaasi. deeqdaasi waxaa si rasmi ah loogu wareejiyay barasaabka gobolka Hawd si loo gaarsiiyo dadkaasi u baahan. mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay waxa ay xuseen in dawladdu ay ka go'an tahay ka jawaabidda xaaladda degdega ayna sii wadi doonaan gurmadka bini'aadanimo iyo dadaalada horumarineed ee gobolkaasi Hawd. halkan duufaantii ka dhacday xukuumad ahaan si fiican bay ugu soo gurmadeen oo kuwaasoo maanta dadkii agab bay la soo gaareen, ustayaal bay la soo gaareen, waxay la soo gaareen. waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan qof kastoo ka qayb qaatay oo qayb ku lahaa inuu taakuleeyo dadkan duufaantu jiidhay. Cabdiris Nuux Muumin oo keenay 100 jingadood, xogayaha dawladda hoose Hargeysa oo Siciid Nuur oo keenay 100 jingadood iyo 100 sibir ah, iyo inta soo socotay ganacsatada. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. marka ay hay'adda Norfan ay ugu tala gashay dadkii waxyeelada ka soo gaadhay oo tiradoodu ay dhan tahay 100 qoys. hay'adda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa oo ugu horeeyo isduuha hay'adda Norfan Mustafa iyo gudoomiyaha hay'adda Norfan oo markiiba ka soo jawaabay isagoo aan 2 cisho aan xilka haynin, taasoo muujinaysa inuu dadkiisa la dareen yahay. sidoo kale waxa iyaduna mahad gaar ah leh wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska. waxaan ognahay toddobaadkan aynu ku jirno inaynu
halkan aafa ay ka dhacday taasoo ahayd roob duufaan loo ka daayay oo guryo badan iyo qoysas badan waxyeelay waxaan halkan aad ugu mahad celinayaa mas'uuliyiintan inoo yimid maanta la soo gaaray gargaarka degdega ah markan warqadaha u geynay isla markiiba jawaabta degdega ah bay keeneen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa xukuumadda wada jir iyo waxqabad waxay inoo muuqatay inay heegan u tahay inay dhammaan bulshooyinka ay xukunto meel kasta ay joogaan inay diyaar u tahay wixii gurmada inay la gaaraan insha Allah bidilaahi kan iyo horumarba aad baan ugu mahad celinaynaa waan soo dhaweynaynaa waxa kaloo halkan ugu mahad celinayaa Caydiruus iyo xogayaha dawladda hoose oo iyaguna soo gaarsiiyay cid kastoo ka soo qayb qaadanaysana waanu soo dhaweynaynaa halkan waxa ka dhacday masiibo guryo fara badan baa baaba'ay oo dabayshii iyo roobabkii waaweyn ay baabiyeen goobihii waxbarashada iskuullada ka mid ah ayaa deerarkoodii iyo galaasyadiiba baaba'een runtii musiibo xoog leh ka dhacday badha saabka iyo maayirku waxayna soo gaarsiiyeen qayladhaan ku aadan hawsha meesha ka dhacday runtii waa arrin u baahan in aad ama si ballaaran wax looga qabto ka wasaaradahaan wasaaradda dibadejinta iyo arrimaha bini'aadanimada waxaanu diyaar u nahay inaanu arrintaa ka jawaabno oo si mug iyo miisaan leh uga qayb qaadanno runtii waan u mahadnaqaynaa wasiirka shaqada wasiir Milgo oo iyadoo maan labadiiba warbixin degmada soo gaadhay warbixin ka soo bixisay hadii la hayda maanta halkan waxaan ku soconnaa laba wasiirka shaqada iyo wasiir dawlaha waxbarashada sanadkaasi guud oo ugu horeeya agaasimaha dibadejintu agaasimaha wadooyinka iyo gaadiidka agaasimaha quality controlka Axmed agaasimo ku-xigeenka dhaqtarka runtii waxaasoo madaxii maanta waxay u yimaadeen inay horta dhibaatadeeda la qaybsadaan oo ay soo arkaan wixii aad dhibaato ku qabtaan iyo wixii deedii soo gaaray wixii warbixinaya ay ruufsadaan wixii wax laga qabanayana laga qabto mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa barasaabka gobolka Hawd oo runtii aan arkayo siduu u dareenayo umadiisa iyo dadka mas'uulka ka yahay hay'adda diyaargarowga aafooyinka aan gudoomiyaha gobolka ku wareejinaynaa boqol reer raashinkoodii oo isku jira baasto bariis sonkor baco bustayaal ayaan ku wareejinaynaa gudoomiyaha boqolka qoys raashinkoodii iyo xoolahoodii naga guddoon haddii ilaahay inaad nala soo aragtaan ka wasaarad ahaan masiibadii maalinkii dhaweyd ka dhacday wixii ay geysatay gaar ahaan goobihii waxbarashada oo iskuulkan aynu taaganay uu ka mid yahay oo iskuul runtii dad badan ay dhigtaan arday badan ay dhigtaan waalid badan ay runtii ku hiiranayeen inay carruurtooda ay ku soo daraan sanadkana qorshayaal badan baanu lahayn oo ah in recruitmentka ama ardaydu inay isdiiwaangeliyaan runtii inaan kor u qaadno waxaa imika muuqata in iskuulkii waxyaalo badan ay ka soo gaadhay gudoomiyaha gobolka waan uga mahad celinayaa sida dhow ee wasaaradda noola shaqeeyo halkan waxaa ku yaalay 4 fasal 7 galaas baa ku dhiganayay galaas 1 ilaa galaaska 7 insha Allah taala dib habeyntan si degdeg ah wax uga qaban doonaa isla bishan hadii la yiraahdo ama bishan soo socota bilowgeeda hadii la yiraahdo jawaab degdeg ah ayaan ka bixin doonaa dhisi doonaa waan uga mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland warbixintii aanu gaarsiinay jawaabteedii oo degdeg ah deegaankii duufaanku ku dhuftay aafada dabiiciga ku dhufatay inuu uga soo jawaabay annaguna amarkiisa ku soconnaa aanu ka jawaabnay cid kasta oo ka qayb qaadatay jawaabta maanta aynu soo siinay deegaanka waan uga mahad celinayaa waxaan leeyahay intaay in ka badan way nagu waajib oo waxaynu xukuumad u nahay oo waxaynu wadanka u maamulayno inaynu ummadeena caawino ummadeena wax la qabanno marka aad baan idinka mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay kulay raashin waa la keenay dhar iyo alaab wax walba waa la keenay deegaan walba ilaahay naguma keenay dhibaato ku dhacdana saasoo kale loogu gurmanayaa loogu tagayaa looga qayb qaadanayaa waanan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay kulay waqti hadal badan ma jiro inaynu alaabti guddoonsiino dadkii dhibaatadu ku dhacday iyaguna siday u qaybin lahaayeen markaa aynu uga tagno oo deegaanka Gumburaha ku wareejisay
ama soo caawisay ama dadkii dhibaatadu ku dhacday u adeegtay oo u keentay hanti ay ku noolaadaan si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa hay'adda World Vision oo xaqiiqdii wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ay wada shaqayn aad u dheer leeyihiin inta badan alaabtan aynu keenay iyagu naga caawiyay nagala shaqeeyay inta ay in ka badanna aanu ka sugayno insha Allah maadaama intani ahayd xaalad degdeg oo timid xaalad degdeg oo u baahan jawaabteeda in la bixiyo sababta aawadeed baan inta yar u soo qaadnay laakiin insha Allah in kale ka badanna waanu keeni doonaa waana soo wadnaa intana waa horu dhac weeyaan waana u mahad celinaynaa World Vision shaqada ay nala qabatay iyo degdega ay noogu soo jawaabtay aniga maanta taydu waa mahadnaq weey maalinta bishu ahayd 23 bishii 22 bishii lixaad halkan dabayl baa ku dhufatay dabayshaasi dadka rayidka iyo meelii dawladda waxyeello u geystay baaq baan dirnay baaqii koobaad waxa ka soo jawaabtay oo soo gaadhay markiiba wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada milgo baaqii wayna la ogaatay 23kii ayay noo timi xogagaal bay noqotay dhammaan waxaan warqado u dirnay hay'adii ku shaqada lahaa hadday tahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hadday tahay hay'adda ka hortagga masiibooyinka wasaaradda waxbarashada wasaaradda dibadejinta wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta ogna madaxweynaha qaranka hoonsan jawaabtii maanta waxay maraysaa inay ka soo jawaabeen oo wasaaradda ka hortagga masiibooyinka ay wasaaradda inay hay'adaasi ay 100 qoys soo gaarsiisay raashin iyo baco iyo bustayaal wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo milgo booqashada ugu soo horeysay inay ragaysa gaadiidka imika agabka oo isugu jira dhar iyo maacuun iyo baco iyaduna waa taa gaariga hadda lagu rigayo oo loo qaybinayo dadkii wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada wasiir Faacuul iskuulkii uu soo maray ballanqaadkiina waa sameeyay inuu dhameystiri doono insha Allah aad iyo aad baa dhamaantiin u mahadsantiin baaxo oo aan ku cusbayn deegaanka agaasimaha dibadejinta safarku ka mid yahay horena wuu keenay maantana qayb buu ka yahay insha Allah gurmadka waxaan leeyahay dhamaantiin waa mahadsantiin oo wixii la inoo doortay weey dhammaan xukuumadda wadajiriya waxqabad maalintii horena waan ku daray waxay u taagan tahay dadkeeda waxay u hayso inaanay ka hakran hadday agab tahay iyo hadday raashin tahay iyo hadday waddo tahay aad iyo aad bay u mahadsanyiin dhammaan mas'uuliyiinta maanta inay soo gaadha booqashada inoogu timi dadkoodana la dareenkaa qadii arrimaha bulshada milga maxamed cilmi iyo cabdiraxmaan duxood professor cabdiraxmaan duxood waxaan ka guddoomay 100 qoys oo raashin ah oo cabdiraxmaan duxood uu keenay iyo agabka baca iyo baco iyo bustayaal iyo milgo oo keentay weel baco iyo maxay tahay dhar iyadana waa ka guddoomay iyo soolaro aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa